السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير كان مختصر كاها أي نسي دونا ما أنتنا درسي نوح كبلاب ميا آيات اللبي اللباتناد سورة الأنفال، وحنا بإذن الله أو كل ما دونا آيات أو نمبر كيدو يها أفرتن سورة الأنفال، وانا مقردي سديداد وقدم بيسي جزكي سقالات. يقول الله سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. waxaynu ku soo guda jirnay aayaadkii ka soo hadlayay qaswatu badar. marka aayaddan maanta aan bilaabayno iyo darsigii hore xidhiidh ayaa ka dhexeeya. aayadda maqradii hore ay ku dhammaatay waxay ahayd: walaa takunuu kaaladiina qaaluu samicnaa wahum laa yasmacuun. الله سبحانه وتعالى يسوع مؤمنين لها ليقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. مؤمنين أيا لراهد لي أو لقو يري مركا هنقنين السدا كوا يري وان مقلني وحنس عن مقل. مرة كلمة داسي لبا قول أيا كسوغان علماء قاركود وانا قولك أو دورت ابن جرير رحمه الله waxay leeyihiin riwaayadda ayay ku fasirayaan laga soo wariyay ibn Abbas iyo Mujaahid oo leeyihiin ibn Abbas iyo Mujaahid waxa weeyaan dadka laga hadlayay nafarun min bani Abdiddar. qowlkana waxa doortay ibn Jariir. qowlka labaadna ibn Isxaaq wuxuu leeyahay maaha mushrikiinta waa munaafiqiinta. wuxuuna markaa cuskanayaa waxtaja wuxuuna markaa cuskanayaa ibn Isxaaq siyaaqa daahirkiisa aayaadku sida iskugu dhacayaan. qowlkaasuu markaa isagu au ku dooday. dabcan siyaaqu markaa au cuskanaya markaa. ibn Jariirna riwaayadda ayuu markaa ku macnay. riwaayaddaasna waa riwaayad ka sugan ibn Abbas. qur'aankana yacni tafsiirka ugu wanaagsani waa in aqwaasha la jamciyo. waxaana jamciyey ibnu Kathiir raximahullah iyo kitaabkeenan mukhtasarka ana uu jamciyey oo markaa in la yidhaahba markaa fiican munaafiqiinta iyo mushrikiintaba ha noqonina sida munaafiqiinta iyo mushrikiinta. marka alle wuxuu leeyahay: inna shara dawaabi, markii laga soo hadlay ha noqonina sida munaafiqiinta iyo mushrikiinta ayuu haddana alle leeyahay: inna shara dawaabi, waxyaabaha dhulka korkiisa tukuba kuwa ugu shar badani cinda allaahi alle agtiisa assummu, waa kuwa dhagahala een xaqa maqal simaaca qubuul, yacni maqal wax lagu fahmo. albukmu, iyo kuwa afkala een ku hadli karin xaqa aan ku hadli karin iyagu. xaqa aan ku hadli karin, ilaahayna ma xusaan, awaamirtiisana ma qaataan, kumana markaas fartoomaan, ilaahay wuxuu ka nahiyana kama joogsadaan. alle wuxuu leeyahay: aladiina kuwaasoo laa yacqiluuna aan caqli lahayn, kuwaas kuwa caqli leh maaha. alle wuxuu leeyahay: walow calima allaahu, alla hadduu ku ogaan lahaa fiihim iyaga khayran, yacni iyaga dhexdooda hadduu alla khayr ku ogaan lahaa la asmacahum uu maqashiin lahaa. walow calima allaahu, alla hadduu ku ogaan lahaa fiihim iyaga
khayran wax khayr inuu ku jira hadduu ku ogaan lahaa la asmacahum. alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay kuwa mushrikiinta ee mukadibiinta uu maqashiin lahaa maqal anfaca oy wax ku qaataan. haddaba wuxuu leeyahy alla subxaanahu watacaala uu og yahay inayna markaa ayna khayr kuwaasi lahayn, ayuu alla subxaanahu watacaala au og yahay. haddaba alla subxaanahu watacaala walow asmacahum haddii au maqashiin lahaana latawallow way jeesan lahaayeen, walxaal hum iyaguna mucriduuna ay yihiin kuwo markaas ka jeesanaya xaqa oon xujooyinkiiyo waxa aanan qaadanayn. marka halkan culimmadu waxay yidhaahdaan walow annahu subxaanahu watacaala asmacahum calaa sabiili alfarad wataqdiir, haddii alleh au u maqashiin lahaa yacni iftiraadiya kaba soo qaayitaan ahaan oo kale, intay ka jeestaan way ka jeesan lahaan buu leeyahay alla subxaanahu watacaala. walow asmacahum hadduu maqashiin lahaa tawallow way ka jeesan lahaayeen, walxaal hum iyaguna mucriduuna ay yihiin kuwa markaas xaqa ka jeesanaya. yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay iyo nebigiisaba rumeeyow, istajiibuu yeela oo ajiiba lilaahi alleh walirasuuli iyo rasuulka idaa dacaakum marka uu idinku yeedho limaa yuxyiikum wax idin noolaynaya. waxa idin noolaynayaina waa maxay? waxa idin noolaynaya ee noloshiinu ay ku jirto oo markaa xaq ah ayuu leeyahy alla subxaanahu watacaala. waclamuu waxaanad ogaataan ana allaha alleh yaxuulu waa ka kala teeda ama ka kala teedaya bayna almar-i qofka dhexdiisa wa qalbihi iyo qalbigiisa. waclamuu waxaad ogaataan ana allaha allana yaxuulu inuu kala teedo bayna almar-i qofka inta u dhaxaysa wa qalbihi qalbigiisa, qofkiiyo qalbigiisa inuu kala teedo. wa annahu arrinkiiyo shanigu wuxuu yahay ilayhi alle xaggiisa ayuunbaa tuxsharuuna la idiin soo shirinaya. alla subxaanahu watacaala aayaddan culimmadu waxay dhahdaan waa min acdami aayaati alqadar, aayadaha qadarka kuwa ugu waaweyn ayay ka mid tahay. sida awgeed ayuu imaam albukhaari wuxuu baab ka dhigay baab la yidhaahdo in allaha yaxuulu bayna almar-i wa qalbih. macnaheeduna waa maxay? insaanow qalbiga laabtaada jidhkaaga ku dhex jira awood uma lihid inaad xakunto, awood uma lihid. tusaale ahaan reer bani israa'iil markii ay caabudeen dibiga waxa la cabsiiyey jacaylka dibiga, markaasaa laga fujin kari waaye. idan walaalayaal qofku hadduu khayr jeclaadana ilaahay khayrkuu jeclaysiiya, hadduu shar iyo wax kale adduunye u jeclaadana alla subxaanahu watacaala taas ayuu markaa ku ciqaabaa. alla wuxuu leeyahay wattaquu ka baqa fitnatan, alla wuxuu leeyahay wattaquu ka baqa fitnatan, fitnada ka baqa laa tusiibanna ma asiibto aladiina dalamuu kuwii dulmiyey ee minkum idinka idinka mida khaasatan gooni ahaan. wattaquu ka baqa fitnada ka baqa laa tusiibanna ma asiibta fitnadu aladiina dalamuu kuwii dulmiga falay ee minkum idinka idinka mida khaasatan gooni ahaan. waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alle shadiidu lciqaabi inuu yahay markaa mid ciqaabtiisu ay daran tahay. culimadu halkan waxay cuskadaan ama ay ku sharxaan aayaddan xadiiska rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee xadiis safiina, doontii qolana xagga sare ay joogeen, qolana markaas xagga hoose ay joogeen, ee qolo yidhaahdeen markaas waan daloolinaynaa, haddii marka ay ka celiyaanna way wada badbaadayaan, haddii ay dalooshatana dhammaantood way qarriqmayaan. sida awgeed adduunkan waxa loo baahan yahay, alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani ilmunkar. waxaynu ku noqonay ummadda ugu khayr badan ilaahay ummadaha u abuuray, wanaaggana waan isfarnaa, xumaantana waan iska nahinaa. waan kusoo qaadanay wato sidoo kale suurat alacraaf yacni nimankii asxaabu sabt inay saddex u kala baxeen.
markaa qoladii amarka nahinaysa ilaahay inuu badbaadiyey, kuwii dembi ay ku galana ilaahay inuu cadaabay, kuwii kalena laga aamusay. laakiin culimmadu leeyihin kuwaana maadaama alla odhan waa la badbaadiyay iyaguna markaas la cadaabay. idan ummaddu haddii ay isfari weydo khayrka oo iska nahin weydo wixii shar ah, waxa weeyaan waxay noqonaysaa markaa alla wuxuu leeyahy wattaquu ka baqa fitnatan ama wattaquu fitnada ka baqa laa tusiibanna asiibi mayso aladiina kuwa dalamuu dulmiga falay minkum a idinka mida khaasatan gooni ahaan. waclamuu waxaad ogaataan ana allaha allana shadiid lciqaab, ciqaabtiisu inay daran tahay. allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy wadkuruu xusa id wakti antum aad ahaydeen fii maka dhexdeeda qaliilun kuwa tiro yar, mustadcafuuna oo la daciifsado, la gumaysto oo la daciifsado, fil ardi arlada dhexdeeda, takhaafuuna idinkoo ka baqaya an yatakhatafakum inuu idinkala dafo, ama aad ka baqaysaan inay idinkala dafaan annaasu dadku, fa aawaakum alla subxaanahu watacaala wuu idin dumay, oo alla subxaanahu watacaala wuu idin dejiyey oo wuu idin xoojiyey, oo madiine ayuu idin dejiyey. wa ayadakum wuxuu idinku xoojiyey binasrihi guushiisa, warasaqakum wuxuu idinku arsaaqay min aayibaati wanaagyada ayuu alla subxaanahu watacaala uu idinku arsaaqay, lacalakum tashkuruun si aad alla subxaanahu watacaala aada ugu mahadnaqdaan. alla subxaanahu watacala halkan culimmadu waxay idhahdaan nimanka carabta ah islaamka ka hor, furus ama beershiyiintu, nimanka ahal furuska waxay ku magacaabi jireen dubaabu saxraa, diqsiga saxraha. wax allaale waxay qiimo lahaayeen ma jiron. ilaahay islaamka ayuu sharaf ugu yeelay ilaa 20 sano gudahood aw ciidankoodii ama jeeshul muslimiin aw gaadhay xuduudda shiinaha. markay markaa ka tageen muslimiintii islaamkana, waad arkayseen walaalayaal maanta xaalka muslimiintu siduu yahay, inay qolo walba ay soo haweysato oo muslimiintu noqdo markaa qasca markaa layskugu yeedhay, sida rasuul ka sugan sala allahu calayhi wasalam. yaa ayuha aladiina aamanuu, kuwa ilaahay nabigiisaba rumeeyow, laa takhuunuu ha khiyaameynina allaha alle, warasuula iyo rasuulka ha khiyaameynina, watakhuunuu haddaad alle iyo rasuulkiisa cafwan yaa ayuha aladiina aamanuu, kuwa ilaahay nabigiisaba rumeeyow, laa takhuunuu ha khiyaameynina allaha alle, warasuula rasuulkana ha khiyaameynina, walaa takhuunuu ha khiyaameynina ammaanaatikum ammaanooyinkiina, wa antum taclamuuna idinkoo og. macnaheeduna waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala wixii au idin faray ee takaaliifa sideeda ula yimaada, ha nuqsaaminina, waxba ha dhimino, khiyaama ha la imanina. sidoo kale ammaanaadkana waxaa soo galaya wax walba. ammaanada ilaahay uu kuu dhibay sida cibaadaadka iyo wixii la mida dhammaanteed, iyo mucaamalaadka dadka leedahay iyo ammaanada laguu dhiibta, intu way soo galaysaa. alle wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala waclamuu ogaada annama amwaalukum maalkiinu, wa awlaadukum iyo awlaadiinu fitnatun inay tahay fitno, wa ana allaha allana cindahu agtiisa inay tahay ajrun ajir cadiimun weyn. alle subxaanahu watacaala agtiisa inuu yahay ajir weyn. yaa ayuha aladiina aamanuu, kuwa ilaahay nabigiisaba, aayadda hore waxay ka hadlaysaa mintaasi tabciidiye weeyaan, macnuhuna waxa weeyaan waxaad ogaatiin awlaadiina qaar ka midihi inay yihiin markaas qaar ka midii markaa inay yihiin waxa alla subxaanahu watacaala wuxuu ka dhigay imtixaan ayuu idinka dhigay oo la idinku eegayo insha allahu tacaala. sida awgeed culimmadu waxay dhahdaan, anagii suuraddii hore na kusoo sharaxnan kusoo qaadanay, in ina min aswaajikum dumarkiina iyo awlaadiina qaarkood inay yihiin cadow. dumarka iyo awlaadda qaar khayr badan oo khayrka kugu booriyay ayaa jira, laakiin halkan waxay ka hadlaysaa mufasiriintu ay yidhaahdaan waxaa laga yaabaa jacaylka aad u qabtay inaad markaa ama aad macsiyo aad ku dhacdo, ama markaa khayrkii aad waday haddaad xajina tagta ilaa lagugu dul ooyood ka joogto. macaali ashyaa, waxyaalaha khayrka uu ilaahay sharafta u yeelay
inay caruurta halkeed naga tegaysa caruurta xaaskoodana kaa joojiyaan saasoo kale suuragal alla wuxuu leeyahy waclamu waxaad ogaataan haa mu'miniinow annama amwaalukum maalkiina wa awlaadukum iyo awlaadiinu caruurtiinu fitnatun waa fitna idin yihiin wa ana allaha allana cindahu agtiisa waxaa ajrun ajr cadiimun weyn yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay nabigiisaba rumeeyow in tattaquu llaha haddaad alla ka baqdaan yajcal lakum alla wuxuu idin yeelay furqaanan wuxuu idin yeelay alla subxaanahu watacaala furqaan markaa halkaa inaan yar sharxo ayaan rabaa furqaan culimmadu waxay idhaahdaan 3 qowl ayay markaa ay ku macneeyaan 3 qowl ay ku macneeyaanna waxa la yidhi waa annasr waa lagu macneeyey waa guusha sidoo kale annajaat badbaadadana waa lagu macneeyey sidoo kale waxa lagu macneeyey yacni alfasl yacni ka kala saara xaqa iyo baatilka waxaanad moodaa in markaa ay xoojinayso siyaaqa qowlka u dambeeya ee ah yacni xaqa iyo alfurqaan wata xaqa iyo baatilka markaa kala saarta laakiin sida aynu munaasabooyin hore aynu ku sheegnayba tafsiirka ugu wanaagsani waxa weeyaan in lagu fasiro ama aqwaasha la jamciyo oon aqwaasha aan tarjiix meeshii aan tarjiix ku jirin in markaa la jamciyo sida awgeed ibnu kathiir raximahullah uu jamciyey wuxuu markaa uu ku jamciyey yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay nabigiisaba rumeeyow in tattaquu llaha alla haddaad ka baqdaan yajcal lakum alla wuxuu idin yeeli furqaanan wuxuu idin yeelay alla subxaanahu watacaala yacni mid aada xaqa iyo yacni haddaad ka baqdaan xaqa iyo baadilka aad ku kala saartaan marka aad xaq iyo baadilka aad ku kala saartaanna sababteeda taa maxaad ku helaysiin nasr iyo najaa waxaad helaysiin guul iyo waxaad helaysiin badbaado ayaad helaysiin sidaasay marka ay culimmadu ay ku macneeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay nabigiisaba rumeeya in tattaquu llaha haddaad alla ka baqdaan yajcal lakum wuxuu idin yeeli furqaanan mid xaqa iyo baadilka kala saara wayukafir wuxuu idinka dhaafi cankum xaggiina sayi'aatikum xumaantiina wayakfir lakum dembigiinana uu dhaafi wallaahu allana dulfadli waa ka fadliga iyo dheeraadka u saaxiibka alcadiimi ee weyn wadkur waxaad xustaa ayuha rasuul allow id wakti yamkuru ay ku dhagrayeen ama yamkuru bika ay ku dhagrayeen oy ku shirqoolayeen aladiina kuwa kafaruu gaaloobay maxay lahaayeen maxay kugu dhagrayeen liyuthbituuka inay ku sugaan yani ay ku xidhaan aw yaqtuluuka ama ay ku dilaan aw yukhrijuuka ama ay kaa saaraan maka wayamkuruuna way ku dhagrayeen oo dhagr ayay maleegayeen oo shirqool ayay maleegayeen wayamkuru llaahu ilaahayna iyaga ayuu dhagrayaa oo shirqooli wallaahu allana khayru lmaakiriin isaga ayaa ugu khayr badan kuwa mujrimiinta ah ka dhagra marka wanagii kasoo hadlayna silsiladeeni asmaaullahi alxusnaa khayru lmaakiriin ilahay halkan madax buu yahay kuwa mujrimiinta ah ee wax makra ee wax dhagro inuu dhagro ilaahay sharaf ayay markaa wataa halkan waxaa muhiim ah inaan sheegno markaa aayaddan sababteeda waxa weeyaan nabiga sala allahu calayhi wasalam 10 sano markuu diinta ugu yeedhayay ee qoomkuusi diintu wax yar ay qaateen badankooduna ay diideen ee iyaguna wax walba ay dariiq wal oo iskagu hortaagaan ay sameeyeen laakiin adeerkii abu taalib ayaa difaaci jiray oo meesha go-aanka loo gaadhayo joogay oo markaa ay kaga baqayeen markuu abu taalib dhintay ayaa waxay ku shireen daar la yidhaha daaru nadwa
baarlamaankii oo kale markaas. Marka Daaru Nadwa markay shireen ayaa shirkaana waxaa kasoo qeyb galay Ibliis. Marka odayaashii Qureysheed ee madaxda ayaa meesha joogay, Ibliisna marka u yimid. Wuxuu iska soo dhigay rajulun min an-Najda. Nin reer Najda ah ayuu iska dhigay. Markii shirkii la bilaabayaa lagu yiri yaa tahay, markaasuu yiri hebel oo Najda ayaan ahay. Waxaan maqlay ninka Carabta kala qaybiyey ee waxa cusub la yimid diinta awooyaashood ka baxay arrinkiisa inaan ka qayb galo markaa. Shirkiiba markaa bilaabmay. Shirkii markuu bilaabmay ayaa nin ka mid ayaa wuxuu soo jeediyey han xidhno. Ibliis baa u jawaabo nirdigiis ka dhigaya waxaas arrin maaha, kaasi mid lagu taliya maaha. Haddaad imika xidhiin, ninkan atbaac badan buu leeyahay, atbaacdaasa habeenkii intay u soo gudbaan sii daynayo markaa la baxsan. Ku kale wuxuu yidhi aniga waxay ila tahay ninkan nafta wuu noo keenaya, magaaladan ka saarno Maka oo Carabta waxa la doonto markaas waxa uu wato. Ibliis baa yidhi arrinkaasina arrin lagu hadla maaha, waana arrin qaldan. Haddaad imika sii daysiin, qabaa'ilka kale u tagay way rumaynayaan, ninkan waa nin afmacaan, cidna ma diidi karto, hadalkiisu waa cajiib. Marka ummadii oo dhan baa soo raac, markaasuu haddana idin qabsanay. Marka Abu Jahl ayaa yidhi aniga idin haya qorshe aad idinku soo dhicin. Qorshahaasina waa maxay? Jilib walba wiil baan ka soo qabanaynaa, seef af badan baan u dhiibaynaa, markaasaan ku dhufto odhanaynaa ku dhufashada nin keliya. Marka sida awgeed haddii saa uu ku dhinto, reer Bani Haashim awood u heli maayaan inay Quraysh oo dhan ay la dagaalamaan. Sida awgeed halkaasa markaa dhiigana markaasaan ku qaybsanaynaa. Ibliis markaasuu yidhi haadaa huwa ra'yi. Haddaba ra'yigu wakaa ayuu Ibliis yidhi. Malaku Jibriil yaa nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam, arrinkuu u sheegay. Markaasuu ku yidhi rasuulka Ilaahi caawa halkan ha seexan. Sidaasi markaa hijradii ay ku bilaabantay. طيب wuxuu leeyahay alle waatan markaa aayadda markaa waad fahmaysin si fudud. wadkur xus rasuul allow id waqti yamkuru bika ay ku dhagriyeen oo ku shirqoolayeen aladiina kuwa kafaruu gaaloobay liyuthbituuka inay ku xidhaan. markaasaa ku sugaan oo ku xidhaan kow, aw yaqtuluuka ama inay ku dilaan, aw yukhrijuuka ama inay maka kaa saaraan. wayamkuruuna shirqool bay maleegayaan, wayamkuru llaahu ilaahayna iyaga ayuu shirqoolayaa. wallaahu allana khayru lmaakiriin, kuwa wax shirqoola ugu khayr badan. waayo isagoo arrinkiisa uu fulin kara, iyagu sama fulin karaan. alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala waidaa tutlaa marka lagu akhriyo calayhim korkooda aayaatuna aayaadkayaga qaaluu waxay dhahdaan qad samicnaa waan maqalnay. low nashaau haddaanu doonno laqulnaa waan odhan lahayn ama waan odhan karnaa mithla haada kan aad leedahay mid lamida. in haada ay maa haada kani maaha ilaa asaatiiru alawaliin, ummadihii hore wixii laga soo sadriyay ama wixii laga soo guuriyay waxaan ahayn maahine. waid qaaluu wadkur xus rasuul allow id waqti qaaluu ay yidhaahdeen allaahumma allahayow in kaana hadduu yahay haadaa kan qur'aanka ahi huwa isagu alxaqa inuu xaq yahay min cindika agtaada ka yimiday fa amtir nagu soo da'sii calaynaa korkayga nagu soo da'sii xijaaratan dhagaxaan min assamaa'i samada xaggeeda, aw itinaa ama noola imo bicadaabin cadaab aliimin waxanuujiya. wamaa kaana allahu alla ma ahaanin liyucadibahum mid cadaabaya wa anta fiihum adigoo rasuulka allana iyaga dhex jooga, anta adiguna walxaal anta adiguna fiihum dhexdooda joogto. wamaa kaana allahu alla ma ahaanin mucadibahum mid cadaabaya walxaal hum iyaguna yastakfiruuna ay istikfaar ama dembi dhaaf ay weydiisanaya. marka culimadu waxay dhahdaan istikfaarta waxaa laga wadaa yacni kuwa muslimiinta ee dhex jooga markaa ayaa istikfaar weydiisanaya. idan walaalayaal halkan mas'alada gaaladu kuwaanaga aayado horena kusoo marnay kibir iyo madaxtaag ayaa waxay leeyihiin ilaahu rabbigiyow waxaan uu nebi maxamed sheegaya haddii ay run tahay roob dhagaxaan ah samada nagaga soo daa ama cadaab markaa noo keen. haddaba iwaanagii horena ugu soo qaadanay waxay degdegsanayaan cadaabka, laakiin cadaabku ilaahay markuu doono ayuu keenaaye kuma keena markaas ay u degdegsanayaan. laakiin marka la qabto arrinkoodu waa khatar. alla wuxuu leeyahay wamaa lahum ay wa ayu shayin yamnacu min cadaabihim. wamaa lahum maxaa u ahaadayo
أو محاو سقناديو ألا يعذبهم الله إلهي أو نو عذابين والحال هم إيقنا يسدون أي كدويان عن المسجد الحرام مسجد كحرمة له أي كدويان دتك دتك أي كدويان الله وحليه وما كانوا إيقوا ما أهانين أولياءه مسجد ككوي كحق لما ملكيسة إن أولياؤه كو مسجد الحرام مسجد حرمة لما ملكيسة كحق له إن أولياءه أي ما أولياؤه ماها كو مسجد كحرمة له ما ملكيسة وحق له إلا المتقون كو متقين ما هنا يعني كو متقين أنبا وحق له وما كانوا إيقنا ما أهاني كو مشركين تيه أولياءه مسجد كحرمة له كو مركا كو حق لما ملكيسة إن أولياءه أي ما أولياءه ما أها كو حق له ما ملكيسة مسجد كحرمة له إلا المتقون كو الله كبق ما هنا ولكنها سيش أكثرهم بدن كود لا يعلمون كو حكمها وما كان صلاتهم صلاة دود ما أهانين عند البيت بيت كحرمة له أكتيسة إلا مكاء فورين ما هنا وتسدية إيو صعب ما هنا وما كان معها صلاتهم صلاة دودو عند البيت قرية أكتيسة يعني بيت الحرام إلا مكاء وتسدية فورين إيو صعب ما هنا معها المركز صلاة دودو وحكالي الله وحليه فذوقوا دندمية العذاب عذاب كدندمية بما كنتم كي صوبتي سأضاهيدين تكفرون كوا قالوا أما بسبب يعني صوبت أدكو قالوا دين فذوقوا دندمية العذاب عذابك بما كنتم كي صوبتي سأضاهيدين تكفرون كوا قالوا بحقا إن الذين كوا كفروا قالوا بي ينفقون وحي بحيان أموالهم مال كودا ليسدوا سئي أجيديان عن سبيل الله إلهي سبحانه وتعالى جد كيس سئي دتك أقدوان إن الذين كوا كفروا قالوا بي ينفقون وحي كبحيان أموالهم مال كودا ليسدوا سئي أجيديان عن سبيل الله إلهي جد كيس يعني مال كودا وحي كبحيان إني دتك كجيديان دينت إله إني كدوان كجيديان الله وحليه فسينفقونها ويبحنيان مال كودا بحنيان مستقبلك ويبحن دونان ثم انت كدبنا تكون عليهم كركودا وحي كوهاني حسرة قوممو ثم انت كدبنا يغلبون ولغرين ولغقوليسني والذين كفروا كوا قالوا بي إلى جهنم حق يدي جهنم حق يدا يحشرون لو سو شيرين دونا أما لو سو شيرنيا halkan culimadu waxay xusaan nimankii reer Quraysheed markii safarkii Abu Sufyaan uu badbaaday ayaa waxay yiraahdeen lacagtaasi waxaan ku isticmaalaynaa inaan mar labaad marka aan ku soo duulno oo Nabi Maxamed ku soo duulno kaas Ilaahay leeyahay way haday ku bixiyaan qoomamay ku noqoni waana laga guuleysani jahannama marka waa waxa weeyaan meesha loo soo shirnayo halka Allah wuxuu leeyahay liyamiz Allahu inuu kala sooco alle liyamiz Allahu inuu ka sooco alle ama uu kala sooco ama uu ka sooco al-khabiitha ka xun min at-tayyib ka wanaagsan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay liyamiz Allahu إلهي إنو كسو على الخبيث كحن من الطيب كوناكسن ويجعل إنو يال الله الخبيث كحن بعده قاركي على بعض قارك كلكوركيسا فيركمه ويسكدل سرسيو أما يسدل سارسارو ويسكر سارسارو كحن يعني قارك إنو يسكدل يسكدل سارو ويسكدل سرسيو جميعا دمانتي فيجعله دبدنا أو يالو في جهنم دحدد أو يالو أولئك كواسي هم إياغو الخاسرون وكوا خساري ليميز إنو كسوع الله ليميز الله إنو الله كسوع الخبيث كحن من الطيب كوناكسن ويجعل أو يالو الخبيث كحن بعده قاركي على بعض قارك لكوركيسا فيركمه أو يستل صارو أما أو يسكر صارو يسكدر رسيو جميعا دمانتي
fayajcalahu أو إلهي سبحانه وتعالى يلا في جهنم دحيد أولئك كواسي هم إيجو الخاسرون وكوا خسارة وقال كم معناه يدوح ويان مالك قيام الله سبحانه وتعالى مركا أهل النار كالجي النار سيدا جوانك لا يذكرها سيال لا يذكرها سين دونا ساسا لو عذاب دونا قل واحد كتر هذا رسول الله للذين كفروا كوا قالوا بي إن ينتهوا هديك جوك سدان يغفر لهم والله ضافي ما قد سلف وحي تجي وإن يعودوا هدي كن نقضانا فقد مضت ويتكتي سنة الأولين والضدي لغلاد دقمي كوي هوري قل واحد كتا رسول الله للذين كوا كفروا قالوا بإن ينتوا هدي كجوك سدان دقالك يا عداود أي كوهيان رسولك يا قال لماذا أي الله كو قالوا بيان أي رسولك ay dadka u diidayaan qofkii rumeeya xaq alle qaata ay jidkiisa u diidayaan hadday waxaa ka joogsadaan oo muslimaan yughfar lahum wallahu dhaafi ma qad salafa wixii tagay waay islaamku yajubu ma qablahu wixii hore ee tagay ayuu dumiyaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wayn yacuudu hadday ku noqdaan oo gaalnimada iyo dariiqa ay sortaagayaan ay ku noqdaan faqad madat way tagtay sunnatul awwalina wadadii lagula dhaqmay ummadii hore macnaheeduna waa maxay ilaahay wuxuu soo dadajinayaa cuquubada adduunyada ugu soo dadajinayaa alla wuxuu leeyahay waqaatiluuhum la dagaalama kuwiina mu'miniinta ahow cadowgiina la dagaalama gaalada ah xataa laa takuuna ilaa ayna ahaanin fitno yani macnaheedu waa maxay yani xataa laa yakuuna shirkun walaa saddun lilmuslimiina can diin illah ilaa awna ahaanin shirki iyo dadka muslimiinta in diintooda laga fitneeyo oo diintooda la iska horjoogsado haye ويكون iyo inuu ahaado الدين diintuna kulluhu dhamaanteed ama diinku kulluhu dhamaantii lillahi alle yani in taacadu ilaahay uu ahaato kaligii oon cid kale loo shariig yeelin fa in intahu hadday ka reebtoomaan fa in allaha alle bima yacmaluuna waxay samaynayaan basiirun kii arkaya weeyaan wa in tawallow hadday ka jeestaan waxaa la farayo oo ah inay ka joogsadaan gaalnimada iyo dadka ay dariiqa iska hortaagayaan fa'lamuu fa in intahu fa in tawallow hadday ka jeesadaan maxay ka jeesanayaan hanidib waxaa la farayo oo ah inay gaalnimada ka joogsadaan dariiqa ilaahay ay dadka ka hortaagayaan ay joojin waayaan arrinka fa'lamuu ay fa'ayqanuu yaqiinsada anna allaha alle kuwiina mu'miniinta waxaad yaqiinsataan anna allaha alle mawlaakum inuu yahay naasirukum ka idin hiilinaya idinka idinla jira nicma almawlaa hiiliyana nicma almawlaa nicmad badana yani nicma almawlaa mid idin waxa weeyaan arrinkiina maamulo oo mawla inii ah oo idinka idinla jira alla ugu wanaagsan wa nicma nasiir hiiliyana alle ayaa ugu wanaagsan wabillahi wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa'lam